wiil isneela oo sigis baag oo dhaxyar gabar isneela oo sigis baag oo dhaxyar oo waliba xaafada ayada toos loo amaanayo aad loo jecel yahay oo gabar qurux badan waa la dhahaa waa labadaas isguursatay marka gabdhaha Soomaaliyeed hal su'aal oo qaba labadan qof baa isguursatay oo anaga isku ogeeyne after 1 year ama 2 year way labadan qof isku qabaan why mi sheegirtiin gabdha Soomaaliyeed way labadaas qof isku qabaan after 2 year ninka muxuu iiga tagay ninkayga naaka lu guursado baba ma dhino adinka way labadaas qof isku qabaan marka 2 year kadib mi sheegirtaa baa that's why marka su'aal jawaabtaada waa istamaho that's why sababtan hadan ku sheegaa labadan qof ay isguursatay aqliga ha shaqeeya gabdho wallahi billahi waa idin jeclahay si serious ah idin kala hadlooya wallahi billahi I love you guys wallahi qof wax ku sheegaa adduunku wax yara aragtaa laakiin wax ku siiyo wax badan aragtaa labadan qof baa anaga naga tagay oon arooskoodii buraanbur galgalanay oo nusuuxnay oo niri guurkiina guur khayre maxay tahay balbalaarkooy labadaana isqabaadee why these two they don't match baby he have to look for another this he have to look for another this my sister he have to because he's still young and six back but you are holof you are holof that's why the guy leave mi fahanteen hadda marka Abo Farah iyo Abay Halimo sababta ay saan u kala noqdeen hadda idin sheega marka Abo Farah markuu guursaday he don't give up his life for Halimo he didn't do that Abo Farah haduu iskuul aadayay iskuulkiisii wuu aadaa Abo Farah haduu maalinta 5 jeer qubaysan jiray wuu qubaystaa Abo Farah hadii uu seexan jiray hurdo badan wali wuu seexdaa Abo Farah gaarigiisa iyo kilkishiisa jibsi kama soo dhacee barfuuna ka carfo Abo Farah jiimka 2 jeer haduu wiiga aadi jiray ama 3 jeer ila wadanka waa la shaqeeyaa time badan lama helay wuu aadaa Abay Halimo maalintay guursatay Farah dareemkeedii ay Halimo isku qurxin jirtay ma ahayn inay bulshada qurux kula dhex noolaato umada indhaha aysan ka abuse gareynay Halimo waxay ka ahayd labiskii iyo jiimkii nin jiimka ay kula kulantid iskuulka Halimo waxay u aadaysan nin ay kula kulantid Halimo shaqada waxay u aadaysan inay nin kula kulanto Halimo Farah markay baratay she quit and give up her life Halimo filinjeerkay fareen la noqotay she sleep in front of the fridge she open fridge and eat have a baby clean the house sleep haday ba clean garayso guriga waxa dhici karta Halimo inay xataa guriga clean garay ma ku soo galo I don't know I'm not clean person by the way 100% me I don't believe dadka saaxiibaday dadka way dhahan like I'm not clean person runta idin sheega Halimo markay filinjeerka madaxa la gashay Halimo 400 pound ay noqotay teeda kale Farah wuxuu isticmaalaa mental game Halimo stress buu ku furaa Halimo stresska overeat bay ka qaadaa haddaan labada caagan ka hadla adinkeedin kama hadlooyaa I'm talking about this too Halimo cuntadii stress bay ka qaaday Halimo maray cunto maray jiifato teeda kale Halimo nolosheedii ayada disaster ka dhigtay laakiin ayadu waxay moodaa inuu Farah ka dhigay Farah noloshiisa waa straight Farah yaa adiga isku sariira ka soo kacda see Farah saan u yahay Halimo adna saan u noqotay marka mi sheegi kartaa why Halimo why are you doing this to us why arooskiini waa ogeyn TikTok la soo dhigay Halimo you was this after that you become this Halimo why sometimes hada Halimo u naxariisanayo sometimes some Halimos they become like that but I don't want to do that because Halimo disan dhahaya marka haddadan ilaaha idin ku dhaarshay maraga gardaran mise dumarka ani dumarka ila gardaran because Halimo nolosheeda ayada mas'uulka ah jirkeeda ayada mas'uulka ah mentaligeeda ayada mas'uulka ah Halimo hadda Farah college isla aadi jirteen oo Farah college-kiisi ku weedan marka isguursateen Halimoy
adiga faarax laguma dhaline maxaa kugu kalifay inaad kuweyt galaysa iskuulkaagi mii sheegi kartaa why abaayo last semester ku jirtay 4 years aadaysay ma faarax dartiisa u aadaysay mise inaad noloshaada aad wax u qabsato haddaa u aadaysa faarax dartiis kuweyt college-ka laakiin haddaad u aadaynin faarax dartiis college-ka why u kuweyt xaliimo why you did that abaayo go back to your school do that finish school xaliimo haddaa 2 jeer jiimka tegi jirtay faarax dartiis aday kuu taala laakiin haddaa adiga immune systemkaaga iyo calorieskaaga iyo bodigaaga u aadi jirtay you need to go because calorieski aashala ka carari jirtay mid ka badan kugu soo darsooma xaliimo yes you dealing with someone else maybe you having a babies then you have to go more but 3 times markuu asaga aado waa inaad dhahdaa listen to me come here you go 3 times gym 4 times aadaya because aniga aan breastfeeding aan sameeyaa ilmaha marka you have to ina ciyaalka la joogto 4taas bari aysan hayn haduu la joogi karina la yukallifu la nafsa ina anaga gabdhaanaha anaga guriga loogu talagalay raggeena looguma talagalin Soomaa bahasha lagu ordo hadaa ninkaaga xataa uu shaqo culus ka shaqeeyaa u naxaysid bahasha lagu ordo ii soo gad aku leedahay gurigaan dhiganaya ma bixi karto Soomaa ilmaha 1 hour cunugaaga uu naab qaadanayo ku ordi kartaa xariga lagu boodboodo ani waxaan aqaanaa gabar caloosha iyo dhexda iyo kilkilaha iyo garbahaba isaga jartay xariga lagu boodboodo Soomaaliya aan ku ciyaari jirnay ciyaal ku ciyaari jireen ee isaga jartay marka adigoo a lot of convenient thing waxa leedahay xataa waxa jira gabdho oo waxa jira Soomaali ah ajnabi ah nooc walba ah magaaladeena degan hadda kale magaaladeena kale waxa degan Firdawsa gym life degan waxa degan gabar kale to ayadana gymamka ma aragtay dadka barta gurigaaga waxa dhihi kartaa gabadha Soomaali oo muslim ah aawaysa waxa leedahay baay macaanay waa dhalay xoogaa hiliba ay koray waxa u baahanahay inaan training isiiso 24 hours gymana jiraan habeenkii waxa dhihi kartaa ilmaha kor iiga fiiri way hurdaan gabadhaas kala la balmi kartaa ama guriga keensan kartaa waxa dhihi kartaa tababar marka I don't understand why xaliimo iyo faarax after 2 years aan u kala noqdaan su'aashaas jawaabteeda ana hadda ku hayo xaliimo you give up marka faarax guursatay laakiin faarax didn't give up faarax noloshiisa adiga kuguma soo koobin laakiin xaliimo adiga noloshaada faaraxa ku soo koobtay shaqa ka shaqeynaysay hal cunug markaa dhashid faarax shaqadiisa ma ku weeda hal cunug u dhalay no taada ha ku weedin waa u yeeraysaa waa wada fariisanaysan familiatin hey faarax you know we had a new baby yes shal labadeena ahayd maanta cunugan ugu soo kordhay ha waa shaqeysaa ha meeqa bari aa shaqeysaa 5 bari ana 5 bari aan shaqeeyaa you want to give up your job 2 days no I don't want to give up my job either maxaan sameynaa marka cunugan beejegaaga ma soo jari kartaa 500 ha ana kayga 500 aan ka jaraa okay 8 hours aan shaqeeyaa let's handle this as adult people or America ku nool no Somali ku nool in lagu calgudo shaqada iska daa shaqada marka iska deysid that is the only life you had maxaa sameynaa marka okay faaraxo marka maxaa sameynaa okay cunugan adiga you not giving up adiga noloshaada cunugan ma ugu give up gareynays maaho ana ma ugu give up gareynay nolosheeda cunugina waa isla dhalnay okay let's do babysitter wa alaykum assalam marka qof assalaamu alaykum soo qor by the way wa alaykum assalam wa alaykum assalam wa alaykum assalam saddex qof ay ahayn by the way waxa la sameynaa marka cunugiga la kaxeynaya daycare geeni Islamic daycares badan Minneapolis waxa jira newborn daycare cunugaaga Minnesota policy waa 6 weeks to 5 years daycare-ka 5 years kadib head start u aada ilmaha uma kindergarten u aada head start was 6 weeks to 5 years imagine so marka 6 weeks to 5 years haysata 6 weeks to 5 years haysata so wa marka umushi ka baxdid maternity leave shaqadaad lagu ogolyaa 3 months hadee ku ogolaadaan hadaa hooyo fiican tahay cunugaaga intuu ku adkaana guriga joogtirti 3 months kaas guriga iska joog after 3 months daycare ka soo apply garee geyso cunugaaga subaxdii markaa soo kacday shaqadaada aad gym soo mar danahaaga soo dhamayso cunugaaga soo qaado maqribadii gurigaaga imo odagaaga casho u samee raaliyo u noqo odagaaga qanci biisi ku noqo laakiin biisina ka noqo quruxdii shalay lagu raacay hadii ay dhamaato ogo mid kale oo la hal raacay
محل إيجا راعينا هدوادين وليلة قرصة اتصل لي وليلة قرصة يا كل قرصة إنا كو قرصة وحيدو كبغا نغس كحرته that's true. I'm sorry I love you guys. قاعد تايجا دعت كلمتس ما إذا وكبقى لكن because it's too big for him. لكن هذا حليم ويتشو I love you do that. هذا شقة هذا يفيرسني يسد وأوكي قبل بدنا يفيرسناي وشقة هذا أكو يضي please go back to your job. هدي أت سميسي إيشك إن نفط هذا قلب بدنا أكج شيء stop eating. إن هدي ما ركتي حليمه by the way اسمه وارر فرح finish حليمه I'm still drinking that means I still love you حليمه so do this. marka jiimka ku laabatid oo shaqadaada ay ku laabatid oo cunugina daycare ay geysaan odagaagana time la qaadatid because daycare ka da cunuga 6 ka soo qaadaysa formka shaqada ka soo baxata laandheere iska dhig qof guri iska fadhiyo umada fiirnaa iska dhigin laandheere iska dhigin taa wacd hello hi babe where are you babe hadda shaqada ka soo baxaa can we have a dinner before ilma aan soo qaadin ani adig yeah where take kulana you can meet anywhere where are you qatar iska dhigno why are you sitting home and making yourself miserable and being like marka la saidin hay ma sha Allah tabarakallah I love you guys dad badana ii xiiseen intaas aan ka hadlayay